السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت وناكسن ولون وناكسن مربات جبتين إن شاء الله ما انتحن دنيا إن هلكن أنفين أما جدول المركزي aan la wadaago dhammaan ardayda macadka ka baran jirtay waxa way maadada computerka ayaamahan markaasi gaabiska xiisooyinkoodii ku yimid waxa way imtixaan sanadeedkii inuu qaadaynay awgeed insha Allah waxaan doonayaa insha Allah koorsadan computerka waa koorso insha Allah aan la joojin doonin oo waxa way ay guud ahaan ardayda koorsada computerka barta ayaga fasax ma gali doonaan oo koorsada waxay u socon doontaa si toos ay u socon doontaa insha Allah aniguna waxa weeye insha Allah waxaan sugayaa waxa weeye Janiska inaan Janis fiican qurux badan aan wada siiyo dhammaan koorsooyinka ardayda markaasi barta computerka awal waxaanu ku soo shaqayn jirnay jadwalkiina insha Allah waxaan rabaa in jadwalkii aan idinku wargeliyo in insha Allah jadwalkii wax laga bedelay sababtoo iskuulkiini waa iskuulkii guud ahaan toddoba ilaa 11 furnaa fasax bay ardaydii ku wada jiraan oo iskuulkii uu xiran yahay sidaas darteed maadaama iskuulkii uu xiran yahay ardaydii caadiga ahayd ay markaas ay maqan yihiin sidaas darteed waxaan doonayaa fursadda inaynu ka faa'iideysano inta uu iskuulku xiran yahay ardaydan ay maqan yihiin badanaa sidoo kale waxaa la geli doonaa insha Allah oo nagu soo dhow bishii barakeysaneed ee Ramadaan sidaas darteed jadwalkii hore kuma shaqeyn doono oo waxaan qaadanaynaa insha Allah jadwalkan aynu insha Allah ku shaqeynaynaa oo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa bacd Ramadaan in koorsadani insha Allah ay soo dhamaan doonto insha Allah jadwalka wuxuu markaasi u sameeysan yahay waxa weeye sida hadba marka Janis loo wada heli karo gaar ahaan marka bisha Ramadaan la gaaro gabdhaha oo kale Janis ma helayaan inta badan waxa weeye shaqooyin bay qabtaan 10 saac ku ito meelaha marka la joogo halkii awal ay soo gali jireen 10 saac iyo 11 ay soo gali jireen insha Allah waxaan rabaa marka guud ahaan ardayda marka computerka ka baranaysa macadka inay ku wargeliyaan asxaabtooda in koorsooyinka insha Allah ay dib ugu furmayaan xiisooyinkeena dib aynu qaadanayno hadii la gaarto insha Allah jadwalka qaybtiisa ugu horeyso waa gruubyada markaasi wiilasha 5 waqti soo gala 5 waqti waxaan ula jeedaa qaar wiilasha waxay soo gali jireen sabti iyo xad waa hal group oo wiilasha sidoo kale isniin iyo talaadana hal group ay soo gali jireen sidaas darteed dhanka wiilasha 5 waqti markaan joogno waa sabti axad isniin talaado arbaco markaan joogno 10 saac ay u bilaabanaysaa maanta hadii la gaarsiyo 10 group ku hore ee wiilasha waxay soo galeen 10 saac katib waxay xiisdooda u dhamaanaysaa 10 saac iyo 40 bay u dhamaanaysaa waa group u horeeyo ee wiilasha groupka labaad ee ku xiga waxa weeye isla sabti iyo xad soo galay oo ah wiilasha 10 saac iyo 40 ay soo galeen waa groupka labaad ee wiilasha waxay xiisdooda u dhamaanaysaa 11 bar ay u dhamaanaysaa halkan waxa weeye sabti xad marka waxa soo wada galaya laba group oo markaasi wiilasha okay isniin iyo talaado waxaa soo gali doona insha Allah 10 saac group u hore ee wiilasha okay waxay soo galayaan 10 saac ay soo galayaan okay waxay ka baxeen 10 saac 40 group labaad waxay soo galayaan 10 saac 40 sidoo kale waxay ka baxeen 11 bar bay ka baxeen isniin iyo talaado way banaan tahay labadan group way banaan yihiin hadii la helo fasal cusub laba fasal cusub hadii la helo waa waynu ku bilaabanaa insha Allah laakiin si waxaan ku wargelinayaa ardaydii dhigin jirtay waxa way khamiista iyo jimcaha gaar ahaan wiilashii dhigin jiray khamiista iyo jimcaha okay toosa soo gali jiray qaarna sidoo kale soo gali jiray 9 saac isniin iyo talaado way imaan karaan sidoo okay way imaan karaan isniin iyo talaado oo 10 saac ilaa 10 saac 40 imaan karaan misana 10 saac 40 ilaa 11 imaan karaan salahan 7 saac khamiis jimcaha group wiilasha soo gali jiray 9 saac group wiilasha soo gali jiray sidoo kale habeenkii marka aynu eegno 2 saac okay 2 saac habeenimo oo markaasi khamiis jimcaha group ay soo gali jiray marka sidaas darteed saddexda group oo wiilasha okay hadii ay isku hadii group-yadii markaasi midaysan mise groupkii midaysan hadii isku soo waafaqaan waxa weeye 5 waqti inay labadan waqti inay ka dhigtaan isniinta iyo talaadada 10 saac ilaa 10 saac 40 ilaa 11 bar waxa weeye laba group ka mid ah halka way soo gali karaan misana hadii sanayn
waxa weeye khamiistooda jimcahoodii ay qaadan doonaan insha Allah ay wax baysan ka ciladaysanay okay hadii adiga aad marka arday cusub danaynay barashada computerka insha Allah okay okay waa ku furanta adiguna inaad ku soo biirto koorsadani walabadan waqtina aad ka faa'iideysto hadii aad tahay wiil hadii aad tahay okay sidoo kale arbacada 10 saac okay arbacada waa hal waqti sidaas darteed xiisdan maadaama hal waqti ay tahay hal maalin kali la qaadanayo waqtigeedu aad u markaasi broad u yahay oo balaaran yahay 10 saac ay bilaabanaysaa xiisadu waxay ku egtahay 12 bar bay ku egtahay marka sidaas darteed maadaama saddex waqti aad haystiin ay haystaan wiilasha kuwii 7 saac soo gali jiray khamiista jimcaha hadda waxay soo gali karaan waxa weeye 10 saac ilaa 10 saac farta مثلا 10 فرت إلى كويت وجبار مثلا 4 كلي بيسوق لي كلام 10 إلى كويت وجبار يسوق لي كلام سوق الأرضي دي حبيك إيمان جرتي لوصا على حبيك حسمه بحنينه ووقت رواد الوجرا دي واحد وتراويح اللي هذا بيشبرك السنة الوجرا سأصدرت الحبين لن حسمه بحنينه سأصدرت أرضي سوق لي جرتي خميس الجمعة أوكي لوصا حبيني ما سوق لي جرتي أي 4 وإيمان كلام 10 قبله إلى كويت وجبار وإيمان كلام حلياس بس صدق هذا okay group ki marka ku soo heshiyo waqti rabo just waxa weey uu qaadanay waqtigiisa uu doonayo okay jadwalka waan ku sii dheeraad waan ka sii tagay waan ka sii gudbiyaa okay marka intaan ka bixin ka hor okay wiilasha 5 waqti marka gruubyada wiilasha insha Allah waxay noqon doonaan 5 waqti okay sabti xad oo loo group sabti xad oo loo group isniin talaado oo loo group arbaco markaasi hal group okay wiilasha markaasi halkaas 5 group ay ka yihiin okay dan gabdhaha oo 5 waqti aan u gudbo ayaguna gabdhaha maadaama bishii barakeysanad ee Ramadaan lagu jiro jaaniskoodii oo aad buu u yaraanayaa marka la gaaro 10 saac ilaa 12 saac sidaas darteed marka insha Allah maadaama macadku fasax uu yahay ardayda aysan joogin ayaynu ka faa'iideysanaynaa fursaddeena insha Allah sabti ahad groupku hore ee gabdhaha waxay soo gali karaan 8 ilaa la gaariyo 8 iyo waxa weeye 8 iyo 40 ilaa la gaariyo waxay soo gali karaan 8 iyo 10 ilaa la gaariyo groupku horeeyo 8 iyo 40 duhurnimo ay qaadan karaan xiistoodii waa groupku horeeyo ee gabdhaha sabtida iyo axadda sidoo kale sabti markaan joogno 8 iyo 40 ilaa la gaariyo waxa weeye 9 iyo 20 duhurnimo ilaa la gaariyo aan dhahay galabnimo ilaa la gaariyo sidoo kale waxa soo gali kara group labaad ee gabdhaha ayaa soo gali kara waqtigaas okay I think waxaan u maleeynaa markii halka ay ku yihiin gabdhaha chance-koodu inta kale shaqada guriga ay qabanayaan soo marka inta u dhaxayso 8 ilaa 10 ilaa 40 waa hal group oo gabdhaha sidoo kale 8 ilaa 9 sidoo kale waa hal group oo markaasi gabdhaha marka sabti ahad waxa qaadanaya xiisooyinkooda wada qaadanaya laba group oo markaasi gruubyada gabdhaha ka mid ah okay hadaynu u gudubno okay sidoo kale isniin iyo talaado okay hadaynu u gudubno sidoo kale 8 iyo iswaad laba waqti waa isniin iyo talaado 8 iyo 10 waxa soo gali kara group u horeeyo ee gabdhaha waxay markaas ay ka bixi karaan saddexdooda u dhamaanaysa 8 iyo 40 duhurnimo okay sidoo kale isniin iyo talaado okay 8 iyo 40 waxa soo gali kara group labaad ee gabdhaha sidoo kale xiisdooda waxa u dhamaanaysa okay ilaa la gaariyo 9 iyo 20 ilaa la gaariyo bay u dhamaanaysa ee galabnimo marka isniin iyo talaado okay isniin iyo talaado waxa weeye afarta group ayaa soo gali kara okay group u horeeyo afarta group soo gali kara markaan leeyahay minis waxa weeye group waxay soo galayaan sorry group waxay soo galayaan 8 iyo 10 waxay marka xiisdooda waxa u dhamaanaysa 8 iyo 40 okay group waxay soo galeen 8 iyo waxa weeye 8 iyo waxay soo galeen 40 ilaa la gaariyo 9 iyo markaasi 20 marka halkan waxaan ku haysanaa laba group oo gabdhaha aynu markaa ku haysanaa okay sidoo kale arbacada marka la gaaro okay 8 iyo 10 waxa soo gali kara group gabdhaha kamid ah ilaa la gaariyo 9 iyo bar ilaa la gaariyo maadaama hal waqti hal maalin ay tahay soo saacada waqti weyn u dheereen xiisada ay soconayso okay marka waxa weeye sabti ahad waxa soo gali kara dhan gabdhaha 5 waqti laba group
isniin talaadana waxa soo gali kara laba group arbacana waxa soo gali kara hal group okay marka halkan waxaan ku haysanaa sabti axad isniin talaado iyo arbaca waxaynu ku haysanaa 5 group oo markaasi gabdhaha ka mid ah okay sidoo kale marka quraan u laabano sabti axad isniin talaado iyo arbaca wiilasha sidoo kale waxaan oo shanta waqti waxaan ku haysanaa halkaasi ilaa iyo 5 group 5 plus 5 waa 10 group okay waxaan halkaas aan ugu soo gudubnay waxa weeye shanta waqti waxaynu galeynaa marka group-yada wiilasha markaasi khamiista iyo jimcaha sidoo kale group-yada gabdhaha ee khamiista iyo jimcaha okay group ugu horeeya ee wiilasha ee khamiista jimcaha waxay soo gali jireen waxa weeye intay sano badan de waxa weeye la gaarin de waxa weeye hiisooyinka inta badan waxay inoo wada socon jireen waxa weeye todosa wiilal soo gali jiray saalsan wiilal soo gali jiray just waxa weeye marka waxay noqonaysaa marka la gaaro bisha Ramadaan ee barakeysan in insha Allah wiilasha group hore ay soo galaan 10 saac ilaa 10:40 okay galabnimo ay u dhamaato ilaa 10:40 galabnimo markaasi isdooda inay u dhamaato okay sidoo kale khamiista jimcaha 10:40 ka bilaw ilaa 12 bar okay maqribnimo ilaa la gaarayo sidoo kale in group labaad ay wiilasha soo galaan waa khamiista jimcaha khamiista jimcaha marka wiilasha waxa u furan in 10 saac ka bilaw group hore inuu soo galo 10:40 inuu ku ekaado sidoo kale group labaadna 10:40 ilaa 12 bar inay soo galaan okay haddii aan eego dhanka gabdhaha ee markaasi chance ka heli kara kaliya waxa weeye khamiista jimcaha okay waxa halka inuu yaala laba group ay halkaas inuu yaala group ugu horeeyo waxa weeye waa khamiista jimcaha markaan eegno 7 bar ay soo gali karaan ilaa la gaaray 8 iyo waxa weeye 8 iyo 10 group labaad oo gabdhaha waxay soo gali karaan khamiista jimcaha 8 iyo 10 ilaa la gaaray 9 iyo 20 okay 9 iyo 20 marka insha Allah waxaan rajaynayaa hadii aan gaarsiyo in insha Allah aad ka wada faa'iideysan doontiin waqtigiina Allah na gaarsiyo bisha barakeysan ee Ramadaan ilaahana ha naga dhigo kuwii markaasi ka faa'iideysta okay insha Allah waxaan idin rajaynayaa inaad asxaabtiina la wadaagtaan jadwalkan muhiimka waxaan ku wargelinayaa marka insha Allah guud ahaan ardayda computerka ka baranaysa macadka inay maanta ay soo wada xaadiraan group kasta maanta 10 saac in la soo wada xaadiro ama sana 10 saac bar inay soo wada xaadirno sababtoo ah waxaan doonayaa waxaan rabaa marka group kasta oo ka soo bilaw sabti axad marka group kasta oo wiilash ka mid ah waxaa laga rabaa hal qof inuu ka socdo wakiil inay soo yeeshtaan si uu waqtiga looga heshiiyo su'aal ahaan sabtida oo kale waxa soo gali jiray group wiilasha groupka wiilasha insha Allah waxaan markaasi aan ku wargelinay inay hal qof ay soo maanta 10 ay baray soo dirsadaan qofkaasna waxa weeye wuxuu u doori doonaa waqti marka ayaga jecel yihiin sidoo kale gabdhaha iyagana ay 10 ay sabtida xad soo galay iyagana hal qof inay soo dirsadaan oo isku ku yimaado si uu markaasi waqti ugu dooro sidoo kale waxaan rabaa group-yaasha dhammaan aan soo wada duubay waxa weeye group-yaasha oo dhan okay kuwa shanta waqti dhiganay iyo kuwa waxa weeye khamiis jimcaha dhiganay oo dhan waxaan ka doonayaa insha Allah galabta 10 saac bar inay isku ka yimaadaan fasalkii qaybta computerka yimaadaan ka bacdana insha Allah waxaan isla meel dhigaynaa waqtiyadan oo markaasi oo jadwalka ah in sida markaasi loo kala qaybsan lahaa marka group kasta waxa laga doonayaa inuu hal qof misan laba qof oo matalaad ah oo matalay waxa weeye groupka okay in markaasi uu joogo kulanka inuu soo xaadiro insha Allah okay sidoo kale waxaan ku wargelinayaa oo anagoo ka faa'iideysanay fursadan jadwalkani shaacintiisa waxaan rabaa insha Allah inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan rabaa halkan fariinaan ugu diro insha Allah waxa weeye laga bilaabo 7 saac iyo bar laga bilaabo 7 saac iyo bar ilaa la gaaray 8 saac iyo 20 misana 8 saac iyo 10 ilaa la gaaray waxaan doonayaa inaan bixiyo xiisad markaasi luqadda Englishka xiisadaasina insha Allah waxay noqon doontaa xiisad markaasi aad iyo aad muhiim u ah waxaan ugu tirigalay oo fursadan aan ugu faa'iideynay xiisadani waxa weeye ardayda markaasi fonforada laakiin se Janice iyo waqti aysan u heli kareynin in insha Allah sanadka inta uu harsan yahay inay luqadda dhimiyaan salaam waxaan laga yaabaa arday fonfora maanta inuu la galaas yahay arday markaasi bilwa misana waxaan laga yaabaa ardaygii isagoo fonfora inuu markaasi uu luqadda Englishka uu dhigto uu baranayo habartay laakiin se waxa laga yaabaa inaysan dhaweyn waqtiga misana inaysan soo dhaweyn waqtigu markaasi uu ka qalan jiwan lahaa salahan anaga hadda waxa weeye macad marka la eego inkastoo ay ku yirihiin ardayda ilaa iyo 4 arday ayaa tirkoob ahaan aynu u haynaa oo markaasi la socda ardayda middle-ka
oo aysan suurtagal aysan noqonayn inay sanadka ay kamid inay qalan jibiyaan maadaama dugsiga idaartu uu ka qalan jibiyana waxa way uu gobolkii ka tagayo meel kale uu aadayo Chinese-kiisi uu iska yaraan doono marka insha Allah xiisadan waxaan ugu talagalay marka inaan si xiisadan waxay noqon doontaa insha Allah xiisa markaasi aad muhiim u noqon doonto insha Allah casharadana sidoo kale waa automatic casharada waa recording lagu sameeyaa arday kasta oo markaasi aad ugu dhigtoonay barashada Englishka gaar ahaan barashada waxa weeye naxwaha Englishka guud ahaan intaba ku hadalka iyo naxwihiis intaba insha Allah hadii aad danaynayso in waqti yar hal bilkii lagu soo gabagabeeyo fadlan soo xaadir macadka maanta ay bilaabanaysaa 7 saac iyo waxaan bilaabaynaa iyo waxa weeye 20 ama 7 saac iyo bar ilaa la gaaro 8 saac ay soconaysaa koorsadaas insha Allah marka soo dhow waxaan ugu talagalay bishan kaliya intuu isku fasaxay inaan ka faa'iideysano hadii aad jeceshahay marka fadlan ma ku soo biiri kartaa qof walba way u furan tahay sidoo kale hadii aad ka mid ahayd ardayda advanced ka ahayd ee macadka dhiganayay oo ka haray waxa way gruubyadiisii fadlan xiisdan fursad jaanisa ku tahay ee ka faa'iideyso wabillahi tawfiiq